hadli doonaa dhowr qodob oo muhiim ah. Kulankii Crystal Palace, dhibaatooyinka dhanka daafaca iyo suuqa kala iibsiga. Kulankii xalay waxaynu helnay fursado badan oo aan goolal u bedeli karnay, laakiin waan iska khasaarnay. Crystal kaliya waxaa heshay 2 jaanis, waxaanay naga faa'iidaysay. Run ahaantii kooxdu waxay la dhibtoonaysaa dhibaatooyin ka jira dhanka daafaca. Fernandinho waa ciyaaryahan weyn oo khibrad leh, laakiin dhanka orodka waa uu gaabiyaa, taasina waxay caqabad ku tahay habka difaacashadiisa. Stones waxa uu ka soo noqday dhaawacyo, tayadiisina hoos u dhac ayaa ku yimaaday. Wadammadii khaladeedkiisa ayaa badan. Aymeric Laporte imika ayuu dhaawac ka soo noqday, kama warqabno tayada uu la soo laaban doono. Dhanka suuqa haddaan ka hadalno, Pep Guardiola waxa uu xaqiijiyay inayna kooxdu la soo saxiixan doonin ciyaaryahan cusub, laakiin kooxda waxaa lala xiriirinayaa ciyaaryahanno badan oo ka dheela daafaca dhexe. Run ahaantii kooxdu waxay u baahan tahay inay la soo wareegto daafac dhexe oo cusub, kaas oo kooxda kusoo daraya tartan iyo dhiig cusub. Champions League waxaynu la ciyaaraynaa kooxda faca weyn ee Real Madrid wareegga 16, waxaana loo baahan yahay inaynu isxoojino. Waxa aynu rabnaa in aynu dhaafno si aynu hamigeena u gaarno. Waxaan rajaynayaa inuu daafac dhexe la soo wareego Pep Guardiola, Robertna uu la soo noqdo qaab ciyaareedkii looga bartay. Daawadayaal, waxaan kaa codsanaynaa inaad ilaaliso subscribe, like ugu dhiirigeliyo wixii talo iyo tusaale ahna kommentiga noogu reeb.